Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan akhyaarta na dhageysanaysa meel walba oo joogtaan kusoo dhawaada war waxaa naga soo gaaray gudaha dalka iyo daafaha caalamka. Shirkadda korontada ee dalka ayaa soo saartay bayaan ay ku sheegtay in howlo dayactir awgeed ay maanta koronto la'aan ka jiri doonto xaafadaha qaar ka mid ah ismaamulada waddanka sida magaalada Nairobi, gaar ahaan aagga Tasia ee xaafadda Fedha, ismaamulka Trans Nzoia, Kiambu gaar ahaan xaafadda Kabete. Shalay ayay ahayd markii ay koronto la'aan ka jirtay ismaamulka gobolka xeebta sida Mombasa, Kwale, Tana River iyo Lamu, taasoo loo aaneynayay dab ka kacay qaybta korontada ee Rabai. Sidoo kale, dadweynaha ku nool magaalada Garissa ayaa maalmihii ugu dambeeyay ka cabanayay culays dhanka adeegga korontada. Afhayeenka dowladda dhexe ayaa sheegay in saacadda uu bilowdo bandowga habeenkii oo lagu baraarugo ay ka mid tahay u hoggaansanka amarada dowladda iyo talooyinka caafimaadka ee lagu xakameynayo caabuqa COVID-19. Oguna ayaa barta Twitter-ka shacabka ku nool ismaamulada Nairobi, Kajiado, Kiambu, Nakuru iyo Machakos ku xasuusiyay in bandowga uu bilaabanayo 8 fiidnimo halka qaybaha kale ee dalka uu ka bilaabmi doono 10 habeenimo.